ميدا كجرا بدا ميدا سوا ساكن ولا قال سو كلا ها ولا قال سو كلا ولا سو بخين ويا ماشي خوس ماشي muuqaalkan hal ujeedo oo keliya ayaan usoo duubaya waa kow in ilmahan walaalaheena ah ee yaryar ee saqiirada ah ee baddu ay laqday dadkooda la la'yahay oo ku dhawaad 40 daqiiqo iska yaala kawaanka malayga hortiisa in dadkiisa la helo sawirada oo aan telegramka gelinay waa nagu filnaan weyse sida aawadeed waxaan rabaa inaan mas'uuliyad wadareed qaadano oo dhammaanteen ka wada qaadano sidii aan muuqaalka u sii gudbin lahayn si aan sabab ugu noqono dad tira badan oo iyaguna dhankooda ka ordaya oo raadinaya qoysaska caruurtan ay dhaleen ama waalidiintooda waa kuwana caruurta waxa laga soo saaraya sida u jeedid muuqaalka dhinaca kale moolka loo yaqaano Geelaq waa meel inta taqaano ama dabaasha u aadi jirtay god ah oo aad u dheer xilliyada qaarkiina hirar laba dhacaya ayaa ka soo dhaxbaxa dhinacyada meeshan lagu dabaasho oo duleysha oo jamalo leh sidoo kale xawooda iyo xajmiga uu ku socdo hirka mararka qaarkiina waxayba tagtaa qofka aan dabaal khatarta ah xitaa inuu wareero jaha ahaan meesha laga jiro marka caruurta godkaas hoose ayay galeen qofa arkay muxsina waana u jeedaan sida gurmudku u socdo oo la soo saaray haddana muuqaalkan sida uga jeedaan marka sawirada telegramkan soo dhignay waa suuragali weyse in la aqoonsado wajigooda aad u isku bedelay sidoo kale gabadhan Soomaaliyeed oo meesha joogta iyaduna waxay leedahay wiil kamid ahaan aqoonsaday oo aan arki jiray laakiin cidiisa meel ay joogaan ma aqaan marka sidaa darteed mas'uuliyad in la saaro waayo أنا صغيرة في السيادة كيس ما رادنا مر كيس لو باين لا راعي كيس أنا حافظ أحمر جبت صوري كيس waa marka kaliya oo loo baahan yahay in dadka loo wada khidmeeyo sidaan hore u balan qaadnana page-kan waxa uu u taagan yahay in dadka masaakiinta ah lagu caawiyo kaliya ma aha in anaga aan wixii anaga u aragna kaliya soo dhignay iyo wixii kale oo siyaasad ah waa tan oo kale in dadka loo gurmado marka caruurtan weli meesha taala muuqaalada waxaan la wadaagay dad muxsiniina oo runtii u damqaday soo marka haddii adiga aad tahay qof qiyaas fiican ama garasho og oo caruur ay ka maqan yihiin ilmaha xitaa hadday isbedelaan aad aqoonsan kartid telegramka waxaan soo dhignay sawiro aad u badan iyo sidoo kale muxuu ahaa video kooban marka walaal halkaasna ka wardoon oo soo arag fiiri si haddii la aqoonsado caruurta meesha looga qaado waa la qaadi waaye laamaha amniga ogolaansho badan way bixin waayeen in la qaado waxay sheegeen in isdhaaf imaan karo haddii meesha laga qaado ilmaha oo dad ehelkooda ah oo meeshii raadinaya inay imaadaan laga yaabaa ay dhaheen xeebta marka meesha ha loo daayo sida aawadeed cabaar ay meesha joogaan ilmaha meedkooda uu yaalaa dadna aad u badanna meeshay buux dhaafiyeen waxaa marka codsanaynaa hadduu ilaahay raali ka noqdo in ilmahan la heli doono baahintan kadib waayo waxaan kalsooni ku qabaa dadka nagu xiran inay fariimaha meel dheer gaarsii karaan tan kale ilmaha in laga taxadaro waaye muhiim waaye badda qatar weyn ayaa ka jirta waxaa laga yaabaa xilliyo aan la gelin inay ilmaha galeen meesha ay haweysteen ee la yiraahdo Geelaq wallaahi aniga oo xasuusteyda dib ugu laabanayo meel aad macnaheedu caadi ma ah aniga idin la hadlaaya ayaa ku dhiman rabay qarniyo hore waqtiyo hore ka hor sababtoo ah waa meel si kasto aad dabaal u taqaanid haddii jihada ay qasan tahay moolkaas biyahan uu aad u badan yahay oo hirka iyo iska daba dhicitaanku wixii dhan ay yihiin meel la gali kara ma aha Geelaq wax loogu bixiyay waa mool aad u dheer waa ilmahana sidaan u jeeda muuqaalka aad ka arki kartid godkaasay hoos u galeen xitaa hadduusan qofkan arki lahayn horay lagama fahmi lahayn sababtoo ah ma sabeynaynin meydkooda ilmaha ma dul sabeynin marka waxaan fahmi waayay ma waqti dheer ay meesha ku jireen ma dhawaana caadiyan qofka markuu dhintana badda waxaa la yaqaanaa oo waqti dheer uu ku jiro inuu dul sabeeyo biyaha marka iyaga hoos ay ku jireen waxaa laga yaabaa mar dhow inay nafta sidaa uga haaday marka ilaahay ha u naxariisto saqiir waaye dhammaantoodba waxaan rajaynaynaa inaad baahisaan insha allah. Salaam calaykum.